dad badan TikTok soo baxay TikTok lay badan dhalinyaro badan TikTok ama YouTube waxaas bilaabaan laakiin TikTok Soomaaliya waa wax cajiib dhalinyaro Soomaaliya soo baxeen Muqdisho siibo anigu waa leeyahay muqaaladoo dhan wuxuu ku saabsan yahay dadka kale in la dulmiyo ka warma dal muslimaan ahay dal dhaqan leh dal diin leh dhalinyaro sax amal soo baxayaan mana la hadlaayo qof la hadlaayo ma jiro wiila maamo gabar oo cunugeeda caana iska siinayso ku taga caaniyo ka qaadana caani cunuga la siinay oo asiga iska caba TikTok app laga sameeyay kaas ciyaalna toorey wataan tooreyda lagu fafaanayaa dadna dadkii amaan Allah muslimiinta iska socdaan cimaamadahooda laga qaadaa ama waxooda laga qaadaa waryaalaha dhalinyarada yaa la hadlo Muqdisho alxamdulillah wuxuu ku fiican tahay qof walbo xuridiisa sidoo rabo u hadlaa wuxuu rabo sameeyna laakiin adduunka basaas waay waxa rabti duub hadda aniga inta iska fariyo qof ila hadlaa ma jiro laakiin qof kale ha dulminin qof kale ha xad gudbin ma ahane dada alaabtooda koofidooda ka dafaysa amaamadooda ka qaadaysa gabdhaha jijiide qashqashaade kaas ma muqaal dhahdeen waxay isku aaminsan inay muqaal sameeyaan taasaba aniga leeyahay maxasan war maxaan igu dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kuwa yaa la hadlo please qofkii arko muqaalkan u tag hala tagareeyo dhalinyaradaas xun tag hala sameey tag ha arkaane hala soo bixiyo hala qabto qof oo muqaal caadi iska sameeyo qof caadi iska babashalay taas hala iska dhaafo laakiin qof kala qashqashaado qof kala dhibo qofkaas la qabta waay siibo waxa ugu daran dhalinyaradan tooreyda oo ku fafaanayaan oo ku farxayaan meel walba ku wareegayaan muqaalada lagu sameeyo kuwan oo dadka koofidaha iyo calaamadaha ka qaadaan ayagana toorey wataan yani qofkii calaamad ka qaadan aduu ku xanaaqo wax ku sameeyo ayagana waxay ku sameeyaan dagaal ka dhacay wala isdil kara war hala qabto intuu wax xun dhicin wax weyn dhicin doon wallahi billah dhalinyarada hala qabto xad gudubka hala joojiyo